السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان صاحبة يت إن عشر كنا مانتا وحويه subject pronouns. Subject pronouns محيين. Subject pronouns are words. Subject pronouns وأريو that كواسو take قاتا the place of a noun بوسكي مجاعة okay مجاع كستمية مايا as the subject of a sentence مجاعي أها جملة faacilkeedii ama subjectigeedii falsameeyaheedii ayay booskooda ayay galaan ereyadaas marka waa 7 erey waa kuwana here are the subject pronouns in English halkan waxaa noo yaalo subject pronounska ee luqadda Englishka ayaa noo yaalo waa I ereyga I aniga ereyga I ereyga I ereyga I maxaan leenahay waa aniga I aniga okay I aniga okay you waxay leedahay adinka oo ah dad badan iyo adiga oo hal qof ah labadaas macno ay leedahay you okay he asaga he handayna waa asaga he asaga waa hal wiil oo maqan oo laga sheekeynayo she aan leenahay iyada she iyada it sidoo kale aan leenahay iyada waa hal shay oo muxuu ahaa malaayaqila ama muxuu ahaa shay iska caadi ah oo shay caadi sida kursi darbi wax la mid ah iyada ama asaga ayuu noqon kariyaa Soomaaliga wuxuu u isticmaalaa ereyada qaar kuwa wuxuu siinayaa wax oo labnimo camal ah qaarna wuxuu siinayaa wax dhidignimo camal ah marka shayga oo malaayaqila wax aqliga lahayn bas kaga isticmaal we annaga we maxaa u isticmaalaynaa annaga they waxaan leenahay ayaga waxaan rajinaa subject pronouns inuu Soomaaligu ku fadhiyo marka I waa aniga you waa adiga he waa asaga she waa iyada it waa iyada oo xayawaan malaayaq la we waa anaga they waa iyaga hadaba waxaan soo xushay meeshan marka waxaan soo xushay saddex subject ayaan soo xushay waa he iyo she iyo it iyo they saddexdaas ayaan soo xushay waaye this is Ali ninkan Ali waaye ninkan aad u jeedo waa Ali waa ka sheekeynayna marka maxaan ka naqaanaa this is Ali he is a student asagu waa arday he is a good boy waa wiil wanaagsan he is a good boy waa wiil wanaagsan this is Aisha tani waa Aisha okay she is my wife iyada waa xaaskeyga she is lovely waa gabar wanaagsan she is lovely waa xaas wanaagsan waaye waayahay groupkan fiiri groupkan waxa la yiraahdaa Ali iyo Ahmed waaye these are Ahmed and Ali kuwani waa Ahmed iyo Ali kuwani waa Ahmed iyo Ali waayahay waa fahantay okay they are brothers waa walaalo they are brothers waa walaalo okay they are handsome boys waa wiilal qurxoon they are handsome boys waa wiilal qurxoon marka ereyga handsome wiilasha loo adeegsadaa halka gabdhaha pretty iyo beauty waxaas beautiful loo adeegsado good one more time aan ku celiyo waxaan leenahay one more time aan ku celiyo iska tiro waxaan okay aad iyo aad subject pronouns maxay yihiin subject pronouns are words subject pronouns waa erayo that take waa soo qaata the place booska of a noun magac as a subject of a sentences oo ah jumlada faacilkeeda macnaha magacyo badan ku jiri karo so magaca oo ah subjectiga ayaan qaadan ayay u taagan yihiin I waa aniga you waa adiga he waa asaga she waa iyada it waa shay loo isticmaalaa ama malaayaqil we annaga they iyaga tusaalooyinka marka waa kuwanaha this is Ali kani waa Ali he is a student asagu waa arday okay this is a good boy kani waa wiil wanaagsan he is a good boy asagu waa wiil wanaagsan this is Aisha tani waa Aisha gabadhani ma she is my wife iyada waa xaaskeyga she is lovely waa gabar wanaagsan
oo xayi ah waayahay these are Ahmed and Ali kuwaani waa Ahmed iyo Ali they are brothers ayagu waa walaalo they are brothers ayagu waa walaalo they are handsome boys ayaga waa wiilal qurqurxoon oo aad iyo aad u qurux badan gabagabadii haddii aan nala soo gaartay waxaan kaa filanaynaa waa inaad videoga like saarto